doonaa 10 wadan ugu taajirsan uguna mushaharka fiican caalamka. Lambarka koowaad waxaan kusoo qaadanaynaa wadanka Luxembourg. Luxembourg waxay ku taalaa qaaradda Yurub. Waxay ku jirtaa wadamada ugu fiican ee Yurub. waxayna xuduud la leedahay wadamada kale ah Germany, France iyo Belgium. Dhaqaalihiisa inta badan wuxuu ku tirsan yahay bangiyada, warshadaha iyo tiknoolajiyada. Wadanka labaad waa United States of America. United States of America waxa waaye wadanka ugu dhaqaalaha badan caalamka. Waxaan ku nool dadyo aad u fara badan. Waxa ku yaala shirkadihii ama warshadaha ugu badan caalamka sida telecommunicationka, ha noqoto internetka iyo waxyaabaha la xiriiro dhan social media. Sidoo kale dhaqaalihiisa wuxuu ku tirsan yahay beeraha. Lambarka saddexaad waxa waaye wadanka Switzerland. Switzerland waa wadan aad u fiican, noloshiisa aad bay u fiican tahay. waxaana ku taala xarunta weyn ee qaramada midoobay, waxayna ku taalaa magaalada Geneva. Dhaqaalaha inta badan waxay ka heshaa bangiyada kala duwan ee ku yaala wadankaas. Waxay caan ku tahay soo saaridda shukulaatada, sameynta saacadaha, bulukaatiga. Sidoo kale inta badan waxay ka heshaa dhaqaalaha dalxiiska. Lambarka afraad waxa waaye wadanka Norway. Norway waxay ku taalaa qaaradda Yurub, gaar ahaan wadamada Scandinavian-ka. Wax soo saarkiisa wuxuu ku tirsan yahay dhismaha, telecommunicationka iyo petroolka. Lambar 5 waxa waaye Netherlands ama Holland. Netherlands waxay ku taalaa galbeedka Yurub. Muddadii ugu dambeysay waxay ahayd wadamada ugu fiican wax soo saarkiisa. Inta badan waxay soo saartaa biraha iyo elektarooniga. Lambar 6 waa wadanka Australia. Australia waxay ku jirtaa wadamada ugu fiican mushaharka. Waa wadan aad u fiican, cimiladiisna aad bay u wanaagsan tahay. Dhaqaalihiisa wuxuu ku tirsan yahay soo saaridda agabyada noocyadiisa kala duwan, qodidda dahabka, macdanta iyo dhuxusha. Wuxuu ku tirsan yahay dhaqaalihiisa dalxiiska. Wadanka toddobaad waxa waaye Norway. Norway waxay ku taalaa qaaradda Yurub, gaar ahaan waqooyiga Yurub, wadamada la isku dhaho Scandinavian-ka. Norway waa wadan population-kiisa aad u yar. Dhaqaalihiisa wuxuu ku tirsan yahay kheyraadka dabiiciga iyo gaadiidka. Canada wuxuu ku jiraa wadamada ugu mushaharka fiican caalamka. Waxayna ku taalaa waqooyiga Mareykanka. Gaar ahaan noloshiisa aad bay u fiican tahay. Dhaqaalaha inta badan wuxuu ka soo galaa cuntooyinka, kalluunka iyo sameynta biraha baabuurta. Lambar 9 wadanka Belgium wuxuu ku yaalaa galbeedka Yurub. Mushaharkiisa aad buu u sareeyaa. waxaana ku taala xarunta weyn ee midowga Yurub. Marka loo eego dhanka caafimaadka wuu ka wanaagsan yahay wadamada kale Yurub. Dhanka waxbarashada
wuxuu soo saaraa biraha mootooyinka la isticmaala adduunka, agabka engineerinka. Dhaqaalihiisa inta badan wuxuu kasoo galaa sameynta cuntooyinka. Lambar 10. Iceland. Iceland waa wadan aad u qabow badan, waxayna ku taalaa qaaradda Yurub, gaar ahaan waqooyiga Yurub. Waxaa ku nool dad aad u yar. Dhaqaalihiisa inta badan waxay kasoo gashaa dalxiiska, kalluunka, sameynta geothermal power, sameynta hydropower, iyo ilaalinta aluminiumka.